sida wanaagsan ee aad noogu mataqaanaayay waad xisay su'aashaasi iyada ama taladaasi insha Allah walaalaha gadaal ka soo galay waxaan ku jirnaa aan kula taliya talama qaadan iyo Abuu Dalaxa insha Allah bidnillaahi kariim waxaad ku soo dirsataan abudalxa1@gmail.com insha Allah bidnillaahi kariim saailkan ku xiga ee taladoonka ah waa saail waa qof mataqaan saailad aad u da'yar waxa ay tiri waxaan ahay 16 jir waa gabar weeyaan waxaana iga yar bay tiri 5 caruura waxay ula taliyeen inaan taladan u soo bandhigo Sheekh Abuu Dalaxa qof waalidii ah family members ah hawreerteedna ii sheegtay waan maraynayaa meesha ku qortay inaan arrintan u bandhigo sheekhu balse uu mataqaanaayay uu talo nooga siiyo waxay tiri waalidkay bay tiri aabahay iyo hooyaday waxay ku hor hadlaan oo ku diriraan hortanada bay tiri mar walbana mataqaanaayay isku qabsadaan mararka qaarkood way isku gacan qaadaan bay tiri aad iyo aad baan arrinka iyada u dhibsadaa waxay qabataa ma baxsataa dawladda ma isu dhiibtaa waxay tiri waxay nagu rideen bay tiri anigii carruurtii yareedba yani mental disability bay nagu rideen bay tiri maskaxiyan baan noo jiranay sheekh hooyo iyo aabo way ku dhegaysanayaan ee hadda waa ay joogaan maxaad mataqaanaa kula talin lahayd arrinkanna waa arrin dhowr jeer soo noqnoqday iyagana dacwad iyo wax walba mataqaanaa kala daalnay bay leedahay gabadha ayarta ah marka Sheekh Abuu Dalaxa maxaad ma aragtay oran lahayd bay leedahay insha Allah falyatafadal mashkuuran wama jiraa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ba'd horta gabadha yar baan u ducaynayaa gabadha 16 sano jirta ee da'da yar ee Allah tabaaraka wa ta'ala aqliga iyo maskaxdaas hamiga iyo walbahaarka qaaday ka walwalsan mustaqbalkeedu meeshu ku dambayn doono ka walwalsan ama sidii ay isku keeni lahayd waalidkeed ka walwalsan horta gabadha ilaahay tabaaraka wa ta'ala ha barakeeyo umrigeeda macal cibaada ilaahay tabaaraka wa ta'ala labada waalid ilaahay tabaaraka wa ta'ala mas'uul buu ka dhigay الرجال قوامون على النساء رجنا أيجاب مسؤولية سرهية وحلقة دون يا لبض قفة إسقفتا إن يقود وأن نقدان شعب كأي هجامين ياني هجيان سئو شعب كأن نقد شعب ونكسن أو وحصو صار له لبض قف وحلقة دون يا إن أيجا لقد يدو حق فعلك إيا حق هذلك إيا حق واحترك إيا وحقبتك iyo xagga laabxaadnaanta intaba iyo xagga cibaadada iyo taacada ayaga laga doonayaa inay caruurtoodu ay kaga daydaan waxaan leeyahay ilaahay oga baqa caruurtiina tabaaraka wa ta'ala maalinta qiyaamana waa laydin weydiini labadiina laba qof oo waaweyn idinkoo aba isu timaadeen maxaa diidaya inaad wada hadashaan maxaa idin diidaya inaad miiska ku wada hadashaan qalin iyo warqad inaad soo qaadataan meel ayna caruurtiinni ayna joogin haddaad doontaan idinkoo codkaba kor iskugu qaado mararka qaarkood idinkoo doonaya inaad xaqa gaadhaan iyo maslaxada qof walbana sida u muuqata uu doonaya inuu reer ku dhiso walaakiin caruurtii hortooda in laysku weliba caruurtee weeye 16 gabar jirta iyo inta ka yaryar ee 5 aba horta maalinta qiyaamo waa laydin weydiinayaa ogaadana meesha aad joogtaan hadda gabadhaagan waxay tidhi ma garanayo waxaan sameeyo ma ka tagaa oo ma gaalan isu dhiibaa ma waxaad sugaysaan ilmihiinna inay gaalo isu dhiibaan oo aad xaqi iyo islaamnimadii aad ilmaha ka hor istaagtaan ma sidaas baad doonaysaan ma idinkaa isu muuqda oo quluubtiinna ee beerkiinna wixii ka beerkiinna ma arkaysaan miyaa qurratul cayn waxay ishiinu ku qabowsanayso ma arkaysaan miyaa waxyaalaha yaabka badan dadka reeraha arrimahooda aad oga warqaba ayaa oga waxaa ka mid a nin iyo xaaskiiba khilaaf dhex mari waxaad moodaaba nimankii yuhuudda ahaa ee dagaalku naga dhexeeyey iyo muslimiintii oo inoo matalayaan filistiin ayaad moodaa sida laysu daba eryayo iyo sida laysu xaqirayo iyo sida layskugu gacan qaadayo iyo sida teleefanada layskugu caynayo iyo siduu midba midka kale uu ka kala wax oga sheegayo
waxaasoo dhanna waa carruurtii waxa tarbiyadu ay ka dhumayso. gabadhani berri nin bay guursan doontaa, maxaad ka filanaysaa? wiilkaagu berri gabadh buu guursan doonaayo, maxaad ka filanaysaa? gabagabada kelimada waxaan leeyahay, gabadhani su-aasheedu waxay matelaysaa qoysas fara badan oo soomaaliyeed oo muslimiin oo soomaaliyeed, qaabka ay carruurtooda hortooda ay kula dhaqmaan. carruurtiina xuquuq bay idinku leeyihiinoo goorta waa wada hadlaysaan xataa idinkoo cadhaysan maya. ha tusina carruurtiinna, soo wada hadla idinku, dib u dhigta wix alla wixii cadho ah oo idinka dhexdiina taalo, ama inaad isku qaylidaan, ama inaybay carruurtii arkaan hooyadood oo loo gacan qaadayo la dilayo, ayadana waa arrin kaloo khatarteeda ale wey. waxaan ku waanin lahaa reerka ilaahay ka baqa. ninka waxaan dhihi lahaa ilaahay ka baq, adaa reerka oday u ahe, reerka si wanaagsan u hago, gacan qaadka ka daayo, tahdiidka ka daa. gabadha waxaan dhihi lahaa zawjkaaga ka dambe oo carruurtan qurquruxda badan ilaahay tabaaraka wa tacaala isaguu kaa siiye, hortooda ha ku ihaanaysanine. haddaad wada hadlaysaan si gooniya u wada hadla. gabadha waxaan leeyahay iyo carruurta ka yaryar, sabra, ilaahay baa nasri idin keeni doona. la jooga waalidkiin, wax idin dhaama arki maysaan. gaalada ugu xoolo badan hadday meesha ugu sarraysa idin geeyaan, labada idin dhashay wax idinka fiican weligiin arki maysaan. dhexdhexaadiya. dad badan baan aragna carruur badan oo waalidkood dhexdhexaadiyey. iskugu yeedha, warqado u qora, imaylo u qora, biskidyo u dira, messajka u dira, iskugu yeedha, annaga idin martiqaadnay ku dheh. kadibna u caqli celiyo, ma sidan baa caqli ah? ma sidan baan annagu guri ku joogi karaa? oo ma sidan baad nagu dhasheen? oo ma sidan baa mas-uuliyada aakhiro xaggeed aadi doontaan? haddaan hadda gaalo u galno dembigeeda yaa iska leh. waxaan qabaa haddaad saas aad ku waaniso, maadaama tahay gabadh caqli badan, waxaan isleeyahay wayba waansamayaanoo taariikhda waxaa lagu hayaa dad badan oo ku soo hanuunay carruurta ay dhaleene. waani baan ku dhihi lahaa, wallahu aclam, walcilmu cinda allah.